isku soo baxan salmiga ah ee ay sameeyeen dadweynaha reer Lughaya waxa uu ahaa mid ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan shil baabuur oo ka dhacay deegaankaas degmada Lughaya kadib markii ay isku dhaceen baabuur ay lahaayeen dad shacab ah iyo baabuur kale oo ay lahaayeen ciidamada ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland shilkaas oo ay sida dadweynaha cabanaya ay sheegeen qasaari ka dhashay mas'uuliyadiisii ay noqotay mid la iska riixay si cadaalad baalmarsan la doonayo in loo maamulo dadweynahan isku soo baxay oo dhiibanaya dareenkooda diidmada ah ee ka dhanka ah saraakiisha hoggaanka u haysta ciidanka ilaalada xeebaha ayaa waxa ay sidaas oo kale fariin u direen mas'uuliyiinta ugu sareysa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay yiraahdeen baan ku biishan jiray waan ku shaqaysanayay madaxweyne Musabiixi maxaan ku raay si degdeg wax uga qabo ninka la ilaaho buraha ariye uu u tagay maxaan ku raayay sheekadu sananka waa u tagtay waan qaadanayaa buu yiri dabadeetana uu diiday shicibku dhacaa shicibku dulmaa maxaan ku raayay waa daalin si degdeg ah haduu gaariyay loo sameeyo oo waxba looga qaban waayo oo bulshada malaas aan dalka ka bilaabay ay mudanayaal inkoo aan sharaf iyo karaamayna aan niga filayo inaad ku qaban doontaan hawsha iyada laba baabuur baa shil ka dhaxmaray halkan degmada Lughaya baabuur waxa ay ilaalada xeebaha baabuurna nin miskiin oo shacabka reer Lughayada waxa dhacday in sharcigii bay mareen shacabina kaasi iyo shacabkii reer Lughayada traffic baa la diray shirka baabuur mudane madaxweyne daawacna uu kaaga yaala oo qaranka Soomaaliland buu yaala waxa la diray in systemkiiba la maray waxa la diray in traffic baa la soo diray laga soo diray gobolka Awdal ee degmada Lughaya xukunto trafficii iyo cidna waxay qaladka cidii lahayd bay saareen waxay ilaahay qaladkan dawladda leh qaladkiisa dawladdu ma leh soo qiimayso qiimayntiina laba jeer baa laba jineer soo kaxaystayna kaasi dabadeedna waxa lagu xukumaynaa anagu waxa kale oo hadaa waqtiga madaxweyne ilaalada ninka la yiraahdo janaka ilaalada xeebu aw soo yiri oon hayna in la yiraahdo in Haruun Saciid oo reer Lughaya buu yahay uu maqlay ayuu yiri ninkaas ka dambeeya hawshan kuma liin taasina mudane madaxweyne waxaan u dul qaadan doona maaha adaa magacaamay deejanan umadeed maaha janan qaranna maaha taasi waa taa waxaana madaxweyne maanta mudaharaadkaasi degmada Lughaya ka socda waa cabasho dareen adiga lagu soo gudbinayo weey waa dadkii ku doortay waa dadkii shalay heel iyo hooba kula garab taagnaa waxaan ka codsanaynaa haddii aad adiga iyo wasiirka amniga hoos tagaan nimankaas 24 saacadii gaariga lagula wareegi waayo 24 saac mudane madaxweyne cabashada dadka ka soo jawaabi weydo sharciga gacanteedaan ku qaadanaynaa noo fasax waxa ka codsanayaa adiga oo madaxweyne qaranka madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa la isoo yahay beelaha iyo waa la iska yaqaana madaxweyne ku xigeenkan leenahay baa intaas oo dhibaato ku liqayna oo ku samreynaa madaxweyne ku xigeen aan waxa ku leeyahay ma samreynaa hadii Lughaya ma samreey waxayna u samreynin boqol dhibaatooyin baa ku luqnay hadii aad hoos u seegi weyd arkaas wixii ka dhacaa anagu kuma jirno degmada Lughaya gawaariga qarankuna halkan way maraan gawaatan gaariga qaranku leeyahay yaa halkan maraan anaga wadayaasho ma horeyna noo taagna imika noo taagna laakiin saaga fasax baan nahay gawaariga qaranka xoog ku qaadana anagu kuwa qaranka ay yimaadaan ciidanka ilaalada ay leeyihiin ama jaran hadii ilaahay iska daayay khayr jana kana waxaan u sheegnaa hadii aad gaarigaas hawshiisa hoos weey kuwa ka dariiqa maraya anagu xoog ku qaadana way ka dhacana anagu kuma jirno madaxweyne waxaan leeyahay ma taacdalana deegiya wassalaamu calaykum waxaan ka cabanaynaa haddaan nahay dadweynaha ku nool degmada Lughaya gobolka Awdal madaxweynaha waxaan sheegaynaa Musabiixi baabuur caruur loogu xamaalayay baabuurka waxa jiray baabuur dawladdu leedahay kolkii taraafiku timidayna waa laga aqbali waayay waxaan ugu daran baabuur dawladdu ay rahay يا باور يرو قبل أن يكون حملنا يجري والله عن كهينات أنا بابور أنا بحنا قبضته وحوي ده تراكيشنا ولا لا يا تاني لا سعرض بكل قاعدة حدان قبل كرينا وضلنا للدور هذا لا إن ولا توجد ليا
إكسيدان هدو دعينا لما دول هيك دعي إكسيدان لما ديما ولا عن يا هديا اللي يسوي حب شيء هذا هالكي سأل مريم بابور تانا المساكين في حمالنا يا هلا هلو الدين لوايو يا هوس والدركي هذه أما الدركي العلاقة حيبها لو شيء ما قيسا لو حوي إنه سواء يكتب باوت يسكت عضو هذا إنه حق له هي لكن واحد قيسا إنه ما قيسا إن هالك واحد دالة جاينا كين يقول واحد دالة الله قطع علينا كجري لو واحد لا وقف سنة أنا ما قرنيه قارن ما أنا ما قارن لا ما قارن أنت بلا صبري أنت بلا صبري يا ما لجنت وده ما وده واحد على سنة محقق رأي بابور أي لا لا حيبها لقيا أي تردي هي بالكلا إنه كان محقق لو بابين حقيسي جاري باب عسيا حافظ عينك لو فريسي محقق جاري لهاي أو حلقة قبل لها لما ترى أنت هالك يعني نقوم محقق رأي سامي سي سنة كان سمعوها يوم المرة هنا اللي بقى هين إما كان قيس أكتر يروحوا قاعدون يقول كي جاري لو بس ولد العالك لو حقنا لو هاي استنتلا تجيب بالكلا لو تجيب محكمة الحكومة لا يسكت إذا دق لو دق واي أقول أنت لك لو شيء يعني قصي هاللينا هذه الدولة دي عند محقنا الدولة دي اللي ملح وين أي وحدة سيتسدان قدرنا محقنا قيمة ينايو قدر محقنا هذا عبد العالي يوسف هون كيبل تي في برما عبد العالي يوسف هون كيبل تي في برما